waxaan rabaa inaan ka hadlo sagaalkii kulan ee Champions League ee dhacay khaasatan ciyaartii dhex martay Dortmund iyo City, Barcelona iyo Club Brugge iyo maxaa sababay 6 koox oo Ingiriiska inay Champions League ay ku jirto 5 ka midana ay guuleysatay oo kooxihii Premier League inay awood weyn ay ku yeesheen Yurub maxaa sababay iyo ciyaaryahanka Phil Foden ma loo magacaabi doonaa xulka Ingiriiska dib ma loogu celi doonaa jimcada taasoo tababare Tuchel oo magacaabi doono xulka Ingiriiska haddii aan ku horeeyo Barcelona iyo Brugge oo 3-3 ku kala tagay ani ahaan waxaan isleeyahay goolkii u dambeeyay oo afraad ay Brugge ay dhalisay taasoo Szczesny kubadda laga dafay kadib markuu isku dayay inuu u gambiyo ciyaaryahankii Brugge kaasoo kubadda laga qaatay si fududna goolka looga dhaliyay hase yeeshee markii dambe garsoorihii oo goolkaas oo diiday waxaan qabaa goolkaas inuu gool ahay ugu yaraan hadduu garsoorihii oo diidana inuu rigooro u dhigay ahayd kooxda Brugge taasoo Szczesny oo jilibka haraata uga dhiftay ciyaaryahankaas Brugge oo ciyaaraya hase yeeshee waxaan isleeyahay Barcelona taas waxay ku tusaysay inay aad iyo aad u liiteen weerarka markay soo qaadayeen ugu yaraan 8 ciyaartooy oo ayaga ka mida inay weerarka ay ku jireen ama 10 marka kubadda laga soo gooyana si fudud goolka looga dhalinayo sida aan Barcelona aan ku aragnana runtii difaacooda aad iyo aad ayuu u liitaa oo inta badan kubad dhexdooda haddii laga bixiyo si fudud ayuu nambarka 9aad oo goolka ula gelaya marka ciyaartii ay Barcelona soo bandhigtay markii laga reebo Lamine Yamal waxaan qabaa inta kale inay yihiin ciyaartooy oo iska caadiya mana qabo Barcelona inay sanadkan ay yihiin kooxda ku guuleysanayso Champions League markaa fiiriso sida ay u ciyaarayaan xataa kubadaysashadoodii badneed ma jirto awoodii ay kooxaha ku maquuni jireenna ma jiraan difaacoodana aad iyo aad ayuu u liitaa oo kala Brugge ayay faraci dila barbardhac uga qaateen taasna waxay ku tusaysaa inay aad iyo aad ay u liitaan kooxda Barcelona mana isdhahay sanadkan kooxaha Champions League qaada doona ayay ka mid tahay ma u malaynayo haddii aan ka gudbo oo aan gudbo dhanka City iyo Phil Foden City runtii ciyaar aad iyo aad u fiican ay soo bandhigtay oo kooxda Dortmund ay la ciyaarayeen taasoo aan la soconno in City isbedel oo ku socdo hase yeeshee ciyaar aad iyo aad u xiiso badan soo bandhigeen ciyaaryahankoodii dhaliyaha oo nambarka 9aad ugu ciyaaraya Haaland inuu gool uu ka dhaliyay taasoo oo ciyaar walba oo gool dhalinayo taasna ay sababtay kooxda City inuu yahay ciyaaryahanka wada inkastoo Phil Foden 2 gool oo aad iyo aad u fiican uu ka dhaliyay waxaana qabaa Phil Foden in xulka Ingiriiska dib loogu magacaabi doono taasoo Tuchel jimcada oo magacaabi doono kooxda qaranka xulka Ingiriiska Phil Foden waxaa la soconaa 2 sano ka hor inuu ka mid ahay xulka Ingiriiska aad iyo aad u fiicnaa hase yeeshee inuu dib u dhacweyn ku yimid markii City ay hoos u dhacday sanadkii hore Cityna hadda waxaa u malaysaa isbedel weyn inuu ku socdo oo kooxda dhalinyaro cusub la keenay ee hadda u malayso inay aad iyo aad isu soo qabsanayaan oo waxaan isleeyahay Phil Foden runtii waxaa aad iyo aad u caawinaya ciyaaryahana fiican ayaa kooxda yimid sida ciyaaryahanka Hollandeeska Tijani oo nambarka 8aad ka ciyaara Rico Gonzalez laftigiisa aad iyo aad u fiican oo kubadda difaaca markuu ka soo qaado meel fiican ayuu uga dhex bixiyaa Phil Fodenna waxaan la soconnaa xariiqinta 18 meelo cariiriya markii la siiyo inuu kubadaha meelahaas oo wax ku sameyn karayo ama saaxiibadiis u dhigi karo ama asiga lafis-aantiisa oo gool uu ka dhali karo taasna ay sababtay in gool dhalintiisii ay soo ficnaatay iyo kubad dhigidiisii taasna hadda Thomas Tuchel oo indhaha uu ku hayo una baahan yahay Phil Foden in xulka Ingiriiska uu dib ugu soo celiyo waxaana qabaa in uu dib u soo laabtay waxaan isleeyahay kooxda City laftigeeda ciyaaryahano kale oo aad u fiican oo dhalinyaro ayaa ku soo biiray sida markaa fiiriso ciyaaryahankan Cherki oo wadanka Faransiiska u dhashay kaasoo gool afraad oo aad iyo aad u fiican ka dhaliyay kadib markuu kubad xariiqinta 18 banaankeeda kubad ka soo qaatay 2 ciyaartooy la gudbay kubad hoosana ka dhaliyay waana ciyaaryahan aad iyo aad runtii u farsamo badan una fiican mustaqbalkana aad iyo aad ayuu u fiican waxaa kaloo runtii ani waxaan qabaa isbedel weyn muujiyey Savinio oo mar walba kubadda markii la siiyay difaaca la aadayo kubada badanna ku soo ridayo runtiina isbedel muuqdo
Savini ku socdo dhinaca kalena waa la soconaa Doku inuu aad iyo aad u fiican yahay goolkii Haaland oo dhaliyay asiga dhinac inuu ka soo galay Cityna waxaan isleeyahay sidii hore way ka soo kabsanaysaa kooxdana isbedel ayaa ku soo socda inkastoo kubadihii gaagaabnaa oo tiki-taka oo dheeli jiray inkastoo bedelay haddana City way soo socotaa jimcadana waxaan u malay doonaa Phil Foden inuu magacaabi doono tababaraha Tuchel kaasoo cayaaryahankii cayaar fiican soo bandhigo oo qaranka uga waca inta badan Phil Fodenna sababta uu maqnaa waxay ahayd hoos u dhac weyn oo ku yimid ayay ahayd haddana waxaan fili doonaa in isbedelka ku yimid iyo gool dhalinta oo bilaabay iyo kubad dhiibidiisa in uu qaranka u baahan yahay sababtoo ay City inta badan kubadda markay qabsato kooxaha gadaal ayay uga sikadaan oo meel yar oo cariiri ayaa waxaa la rabaa in wax lagu sameeyo taasna runtii aad iyo aad ayuu u sameeyaa goolalna uu ku dhaliyaa meel fiicanna uu ka dhigaa haddii aan u gudbo Chelsea oo kooxdii Karabakh barbardhac la gashay taasoo cayaaryahanka Garnacho oo goolkii barbardhaca u dhaliyay hase yeeshee waxaan isleeyahay Chelsea oo Tottenham intay u timid awood u sheegatay guulna ka qaaday inay Karabakh barbardhac ay la gasho taas waa dib u dhac weyn oo ku yimid runtii kooxda Chelsea waxaa u malaysaa inaysan si joogto aysan u badan karin laakiin waxaan isleeyahay wiilka yaroo Brazilianka Esteban inuu aad iyo aad u soo socdo cayaar fiican oo muujinayo mustaqbalkana waxaan isleeyahay cayaaryahankaas cayaaryahan weyn aad iyo aad u fiican ayuu noqon doonaa oo geeska ka dheelo haddii aan u leexdo dhanka iyo kooxaha Ingiriiska oo wax awood ku yeeshay Champions League waa markii ugu horreysay 5 koox oo Yuruba ay guuleysato waxaana Tottenham waxaan la soconaa inay guuleysatay 4-0 ay ku badisay City 4-1 inay ku badisay Liverpool 1-0 inay ku badisay Newcastle inay 2-0 ay ku badisay Arsenalna 3-0 inay ku badisay Chelsea markii laga reebo shanta kale way guuleysteen waa markii ugu horreysay oo Yurub oo koox Yuruba ay saas 5 koox wadanka wada socota ay ku guuleysay maxaa sababay kooxaha Ingiriiska awooddaas inay la soo baxaan 24 cayaar ay cayaareenna 17 mar inay guuleysteen 56 goolna ay dhaliyeen isku darkooda taas waxay ku tusaysaa awoodda ay leeyihiin kooxaha Premier League ay ku leeyihiin Yurub si kastaba haatee waxaan qabaa waxyaalahaasoo dhan waxaa u sababa lacagta la geliyey kooxaha Premier League oo waxaan la soconnaa Arsenal lacaga inay isgelisay sanadkan ciyaartooyna ay soo gadatay Premier Leaguena 3 gool keliya in laga dhaliyay Champions Leaguena aan waxba laga dhalin ay kaalinta labaad ay fadhiyaan ay 12 dhibic leen 4 cayaar ay cayaareen afartaba inay guuleysteen Bayern Munich kaalinta koowaad inay ku jirto laakiin isku dhibcayeen sababtana tirada badan goolasha ay Bayern Munich ay dhalisay Inter laftigeeda 4 cayaar ay cayaartay way guuleysatay taasna waxay ku tusaysaa lacagaha ay geliyeen Premier Leaguena lacagihii ay galeen waxay ka lacag badan yihiin markii la isku daro Liga 1ka Faransiiska Serie A-da Talyaaniga iyo La Ligaha Spain iyo Bundesligaha Jarmalka afartaasoo la isku daray ayay ka lacag badan yihiin lacagta ay Premier League ay wax ku soo gateen kaliya taasna waxay keentay awoodda ay la soo baxeen kooxaha Ingiriiska ee Yurub inay taas ay sababtay ay guulaha ay gaarayaan ay taa lacagaha ay geliyeen iyo macallimiin tayo leh oo meesha isku yimid iyo ciyaartooyda isku yimid oo wadamada badankood waxaan la soconnaa markii Spain la dhaho waa Real Madrid iyo Barcelona kaliya Jarmalka waa Bayern Munich oo kaliya Faransiiskana waxaa ka socda PSG oo kaliya laakiin kooxahaas kooxa la dhayalsan kara maaha Arsenalna waxay u muuqataa sanadkan inay noqon doonto sanadkii ugu horreeyay ay Champions League ay ku guuleysato sababtoo 4 cayaar ay cayaartay ilaa hadda wax gool lagama dhalin Premier Leaguena 3 gool kaliya ayaa laga dhaliyay ciyaaryahano isku dheelitiranna way keensatay runtii sanadkanna rajo weyn ayay leeyihiin kooxaha Premier League ee Ingiriiska inkastoo ay meesha ay weli ay ku jiraan Barcelona iyo Real Madrid iyo Bayern Munich iyo PSG oo afartaas koox aan ahayn kooxa la dhayalsan karo laakiin waxaan isleeyahay Ingiriiska sanadaha soo socdo haddii lacagtan uu qarash garaynayo oo sii wado inuu awood u yeelan doono inuu kooxahiisa Yurub ayaga ay noqdaan kooxaha u awooda badan adiguse sidee kuula muuqataa kooxahan Ingiriiska oo lacaga badan isgeliyey oo ilaa hadda 6 koox Champions League ay ku jirto 5 koox ay badisay ee awood la soo baxeen ma isleedahay mustaqbalka
yurub kooxaha ingiriiska ayaa la wareegi doona mase waxaa is leedahay lacag kasta ay bixiyaan real madrid iyo bayern munich iyo PSG iyo barcelona ayaa jidka u fadhiya oo reebi doona sidee adiga kula muuqataa bal fikradaada nala wadaag